inkastoo magaalada muqdisho qaraxyadu ay ku soo noqnoqdaan haddana waxaa lagu tilmaamaa magaalo dadkeedu ay adkeysi badan leeyihiin qaybo ka mid a magaalada muqdisho sida xeebta liido oo kale waxaa ka socda ganacsi iyo damaashaad xeebta loo tago wakaalada wararka ee Reuters ayaa warbixintan ka diyaarisay dalxiiska bulaalay ee magaalada muqdisho ee gaar ahaan xeebta liido waxaa inoo soo koobay Ibraahim Xasan Daandurey. meelo ka baxsan halka ay qaraxyadu ku badan yihiin ee xeebta aadka loo jecel yahay ee muqdisho dalxiis ayaa bulaalaya qaar ka mid a dadka maqaayadaha ka ganacsada ayaa burcadbadeed u arka mid iyaga uga halis badan qaraxyada laakiin cabdiqaadir maxamed oo leh doon maqaayad ah oo dul sabaysa xeebta muqdisho ayaa u arkay inuu furiyo mid ka mid a riyooyinkiisa. doontan markaan sameynaynay waxaan ku xisaabtannay in ayadana laga qaato oo maraakiib lagu doonto tusaale ahaan laakiin waxaan u sameynay hab aysan ku carari karin orod dheer ku geli karin oo aan doomaha dheer ay ka daba tegi karaan oo adiga qofka markuu fadhiyo doonta saaran yahay inaad koobabka alaabta cuntada ku cunaayeen maacunta waxaas inay daadanaynin marka taasaa ka fahmi karta inay aad socodkeeda aad u yar yahay oo xoog badan aysan lahayn waana loogu talagalay cabsida burcadbadeed everywhere meel walba imaan karaan laakiin hadda waxaan ka cabsanayna tuug waa maana burcadbadeed kama cabsanayno. magaalada muqdisho waxay xambaarsan tahay oo weli ka muuqda nabaradii ka soo gaaray 10 sano oo colaada iyo rabshado la degay tan iyo burburkii dawladdii dhexe sanadkii 1991 burcadbadeed mar 7 sano haatan laga joogo qaati laga istaagay xeebaha Soomaaliya oo bilaayin dollar ay ku waayeen shirkadaha maraakiibta ayaa hadda dhif iyo naadira sidaas oo ay tahay weli waxaa magaalada Gilgila qaraxyo soo noqnoqda kooxda xagjirka ee alqaacida ku xiran ee al-shabaab ayaa laga saaray magaalada oo hadda duur ku jira waxaase aad u yar kalsoonida lagu qabi karo nabadgelyada ay dawladda qaramada midoobay taageersan tahay ay ku soo celisay qaybo ka mid a dalka tan iyo bishii January caanaha xoorta leh ee shubmaya iyo shanqarta qaxwada ayaa soo jiidanayay dhalinyaro doontiisa ka soo buuxsama kuwaas oo iskula dhaqaaqa sawirro ay taleefanadooda gacanta isaga qaadayaan. samiire maxamed waxay ka mid tahay macaamiisha doonta maqaayadda ah. dalxiiska inuu yahay mid aad muhiim u ah kana sii fiicnaanaya marba marka ka dambaysa mar walba timaadid badda liido ama xeebtana ay rajo weyn ku gelinaysa waxaana dareemaysaa in shacabka Soomaaliyeed dhalinyarada ay u badan yihiin badda yimaadaan siiba weekendiyada hadda eegto maalinta Khamiista Jimcaha waa maalinta ugu dadka badan ee dugsiyada iskoolaadka xiran yihiin dadka ay jecel yihiin inay dalxiiska iyo damaashaadka u imaadaan xeebaha iyo badda. macaamiil u muuqda kuwa ladan ayaa cunaya duulshe way qoslayaan iyagoo ku cararaya taleefanadooda xeebta ka dambaysa halka ay doontu sabaynayso dhalinyaro iyo dad kale ayaa ku sugan oo dabaalanaya iyagoo aan ka baqayn libaax badeed ama weerar argagixiso. xeebta liido ayaa meesha ugu qiimaynta badan ee muqdisho dalxiis loo tago marka aad gasho barta internetka ee Trip Advisor. cabdiqaadir maxamed ayaa ka hadlaya caqabadaha ku xeeran ganacsigan oo kale. ugu horeyso aan la kulanno waxay noqotay macnaha horta materialkii markaan aan samaynayna doontan Soomaaliya waxaan oo dhan ma wada oolin laakiin alxamdulillah ganacsatadii oo bakaaraha Soomaaliyeed aad ay noo caawiyeen baahideena intaan sii soconay shaqada ayay wixii kale u baahneen noo keeneen. caqabada kale waxay noqotay dadkii inaan fahamsiino doon yar la raaci jiray doontan kale la fuulaa la fadhiisanayo cunto lagu cabaayo waqti qaadanaysa dadka inay fahmaan. inkastoo horumarka muuqdo uu jiro ayaa haddana waxaa la dafiri karin halista dhinaca amniga ee magaalada ka jirta. 10 qof ayaa ku dhimatay bishii Agost ee sanadkii 2016 markii maleeshiyada al-shabaab ay gaari ku qarxiyeen maqaayad ku taala xeebta dacalkeeda ka hor inta aysan dagaal foolka foola la gelin ciidamada ammaanka. isla maalinta weerar kale oo dhacay 17 qof ayaa ku dhimatay.